howlgalkan oo ay si wadajir u fuliyeen ciidamada xoogga dalka qaybta 43aad ee Jubbaland iyo ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland ayaa ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada ayaa ka tallaabay webiga waxayna u dhawaadeen degmada Jamaame oo ay si buuxda gacanta ugu hayaan kooxda Al-Shabaab. Deegaanada ay ciidamada isgarabsanaya la wareegeen ayaa waxa kamid ah Bandar Jadiid, Malaley, Janaalajay, Koban iyo Araare oo dhamaantood ah deegaano dhaca webiga jinkiisa. Saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay sii socon doonaan howlgaladan maalmaha soo socdana ay ciidamada la wareegi doonaan degmada Jamaame iyo tuulooyin kale oo dhowr ah. 17 kamid ah kooxda Al-Shabaab ayaa howlgalkan lagu dilay sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen. ciidamada waxay degta shisho waxay ka gudbeen tuulada Malaley, waxay mareen Janaalajay ilaa iyo bahar meesha la yiraahdo bahar saabka eerida ay ciidamada waxay howlgallo ballaaran ka sameeyeen aad u baaxad weyn oo lagu baacsanayo kooxaha sharwadayaasha ah. saddexda tuulo waxaa lagu galay dagaal alxamdulillah ciidamada waxaa u suura gashay saddexda tuulo in ay kala wareegaan kooxaha sharwadayaasha ah. sidoo kale ciidamada waxay Araare ilaa Koban ay waxay ka sameeyeen howlgallo aad iyo aad u baaxad weyn. waxay soo saareen 3 meeno waxay dagaal ku galeen sidoo kale tuulada Koban. alxamdulillah ciidamada iyaga ilaahay halka guul ayuu ku siiyay waxayna ku burburiyeen ligii kooxaha sharwadayaasha shacabka ay ka dhibaateynayeen kuwa halka joogan ay baad kaga qaadanayeen kuwa deegaanada xorta joogan ay ka cabsi gelinayeen oo dhiigooda ku banaysanayeen ayaa sidoo kale ayadan lagu soo burburiyay. ciidamada Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka waxaan leeyahay hambalyo guush aad gaarteen waan idinku hambalyeynaa waan idinku duceynaynaa haduu ilaahayno waxaan rajaynayaa insha Allah bidnaa kariim maalmaha soo socdo Jamaame iyo deegaanada ku xeeran in laga xoreyn doono kooxaha dhagarqabayaasha ah ee shacabka Soomaaliyeed dhiigiisa banaystay. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab wax walba ayaga ayaa ka shar badan. deegaanada hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland la wareegeen ayaa waxa aad u liidato nolosha dadka ku nool tuulooyinkan. waxaa jira tuulooyin qaar oo ay dadka isaga qaxeen maadaama colaad ay ku soo noqotay. Ilaadan Maxamed, Universal TV, magaalada Kismaayo.